إنا لله وإنا إليه راجعون. دكتور أفرح haddii aad wax iga weydiisay aniga oo tiiraanyeysan ayaan ka hadlayaa ma badinayo maxaa yeelay allaha u naxariisto ilaahay jannadii geeban iyo hadalkeenu inuu ku koobnaado ay tahay kolleyba inta nool unbaa wax la weydiiyay walaalkeen دكتور أفرح waxa aan baranay waqti aan dhaweyn isaga oo cadan ka yimiday halka xiriirkii ka bilaabmay 80-nadii bilowgeedii bay ahayd ayaa aan isku soo gaadhnay ilaa wafaadkiisii ama geeridiisu ay u timiday aanan kala faaruqin baan u jeedaa oo kolba mashruuc uu wado aan la wadnay annaguna haddii ay tahay shaqo uu gacanta ku hayay marka oo carabiga iyo soomaaliga dhaqanadooda iyo qoraalkooga iyo sida ay iskugu dhow yihiin ayuu xagga taariikh ahaan uu ra'yi ka bixinay wuu jiraa kitaabkaasi baan u malaynayaa xaggan soomaaliyana hawl badan buu ka qabtay intii oo kitaabkiisii rawaayadiisii maxaa la yidhahdaa maanafay ay caan noqotay kabacdi dhulka ingiriiska ayuu tegey oo uu PhD-giisa ku soo dhammaystay waxa uu jeclaa oo uu halgan dheer ugu jiray waxay ahayd dhaqanka soomaaliga afka soomaaliga sida hore loogu marinayo sida isagii oo hodan ah af hodan ah oo gobolka geeska Afrika ku ah caan ku ah xiriirinaya ummado dowlado badan ka dhaxeeya isku soo dhaweynaya ummad quraata ka dhigaya haddii uu dee xarigaasi go'o wuxuu aaminsanaa inaan ummaddan dib loo arki doonin waxa aan dee isleenahay meesha uu ka tegey adkaan doontaa si aan u helno qof meeshiisii gali kara way adkaan doontaa kolleybase wacad wuxuu ku hadhay bay soomaalidu tiraahdaa ninkii nool waxaan dee naxariista iyo janno allaha yani aan u baryayno kasakoo inaan dee haddana tilmaano wixii aan ka ogeyn hawlihiisaas wixii uu qoray af soomaali ku qoray qaar uu ingiriis ku qoray qaar uu carabi ku qoray intaba way yaallaan ugu dambeyn waxaan ku wada jirnay hawl kale oo ka weyn oo sida aan soo sheegay la xidhiidhsan wixii waxqabad u baahan sidii loo badbaadin lahaa afka soomaaliga maadaama ay dowlado kala duwan ay ku dhex dhool yihiin dadka soomaalida la leeyahay in wax xidhiidhiya ama afkoogii nooleeya ama meel xarun u noqota afka in la abuuro ayaan ku talinay bay ahayd halkan 40 jirkii qorista af soomaaliga markii aan ka hadlaynay mashruuca uu ka hadhi waayey isagoo annaguna waan la wadnay waxa aan abuurnay in kol haddii uu dowlado badan ka dhaxeeyo in loo sameeyo meel uu sal uu dhigo lagu ururiyo kow lagu baahiyo waa 2 lagu ilaaliyana waa 3 intaas oo dhan meel aan ku qabsan karna hawshaasi oo dadka oo dhan iska wada dhex arki karaan aynan la odhan af soomaaliga reer hebel af soomaaliga dowladdaasi aanan la odhan yaan ku heshiinay waa la nala ogolaaday hawshaana gacanta ayuu ku hayay imika
akaademiye goboleed baan u bixinay af soomaaliga oo muqdisho aan uga dhignay hooygii af soomaaliga halkaasaan uga dhignay dhismayaal badan buu u baahan yahay dhismihii ugu horeeyey annaga maalgelinay weli ma dhammaan baan u malaynayaa laakiinse dee uu ila socodsiinayay intii oo yani hawshaasi kolkii aan galnay kolba sida ay yani hawluhu u socdaan ayuu nala socodsiin jiray Somali Pen isagaa ka aabba ahaa nala gargaaray ama nagu gargaarayna inaan Afar Pen aan ku daba xijisiino hawl yani aad iyo aad muhiim u ah ayuu halkaana ka waday hawlo kale oo Soomaaliya dhexdeeda uu ka waday oo dastuurka iyo waxa gudiyadana uu hawl weyn oo qiimo leh ayuu ka waday maxaa yeelay nin isku hibeeyo naftiisaba u iloobay af Soomaaliga iyo qaranka Soomaalida la yiraahdo inuu ka geysto waajibaadkiisa waa soo koobay intaasaan ayaan ka sheegaya allah u naxariisto mar labaad asalaamu calaykum waraxmat ullah